isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Xasan Koore ayaa kala wareegay shirkadda dhismayaasha Big Boss dhismaha dhakhtarka degmada Garaadag kaasi oo ay hirgelisay munaasabadan lagula wareegayay dhismaha dhakhtarka ayaa waxa goob joog ah maamulka degmada Garaadag ka wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiin kale ugu horeyntii waxa madasha ka hadlay mas'uul sare oo ku hadlayay afka shirkadda Big Boss Faarax Aadan Ciise kaasi oo ka warbixiyay dhismahan dhakhtarka iyo marxaladuhu soo maray xafladan aan maanta ku wareejinayno dhismaha ballaarinta caafimaadka ama dhakhtarka Garaadag kaas oo ka kooban saddex magaraysa guri oo laba waad iyo qolkii qaliinka marka hore waan ku soo dhaweynaa waxaan ku salaamanaa salaanta islaam wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal ama mudane isuduwe dhakhtarkan ama qolaalkan ama guryahan halka ka dhisan aynu hadeer wareejinayno waxa weeye waxa iska timi baahidii ma garanaysaa bulshada ama dhakhtarka Garaadag ayay ka timi marka runtii markii baahidaasi muddo ay soo jiitamaysay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaraddiisa caafimaadka ayaa ka soo jawaabtay marka anagu haddaan nahay shirkaddii Big Boss ee dhisaysay waararkan waxa maanta naga diyaara oo maama muddo naga diyaarsanaa wareejinta dhismayaashan waana naga diyaar inaad nagala wareegtaan sidoo kale waxa hadalkiisa kala dambeeyay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer degmo oo dhamaantood bogaadiyay hirgelinta dhismaha casriga ah ee dhakhtarkani kaasi wax weyn ka tari doona baahiyaadka caafimaadka ee heer degmo iyo heer gobol dhankooda waxa hadalka qaatay maayirka degmada Garaadag Maxamed Cilmi Maxamuud iyo mas'uuliyiin kala duwan kuwaasi oo bogaadiyay dhakhtarkani sidoo kalena waxay baaq u direen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafadhi inuu keeno qalabaynta dhakhtarkani anta farxad bay noo tahay inaan halkan joogno isbitaalkan quruxda badan naloo dhisay maadaama ay jireen baahiyo aad u fara badan oo ay qabeen hooyo la sii qaadayo oo inta ay ku sii dhimanayso ama loo sii sido burco iyo inta ay isu jiraan Garaadag waa la garan karaa inta referalka loo sii wado ay ku dhiig bixi karto oo maanta halkan adeeg loogu qabanayo isbitaalkan ama qaybtan dhismahan cusubi wuxuu ku jiray miisaaniyadii 2021 shirkadda dhistana waxay ahayd shirkadda Big Boss Construction Company marka ugu horeysa waxaan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay suurtageliyay inaynu maanta ku sugnaano halkan kana qayb galno inaynu la wareegno dhismahan haddana nahay wasaaradda caafimaadka guryaha kan si fiican ayaa wasaaradda ilmankii dhisay baan leeyahay daarahan ay u dhiseen si fiicanna waanu ula soconay si fiicanna waanu ilaalinay si fiicanna waanu sawiray kama aanan qoob qaadin ilaa la dhameeyay hadeertana waxa weeye waa wareeg degmada Garaadag saa ogtihiin sanadkii hore dhamaadkiisii ayaa qorshahan la diyaariyay qorshahan wuxuu ahaa degmada Garaadag waa degmo meel center ku taala saadaradeed waxa laga maarmaan noqotay oo baahi taagan noqotay in la sameeyo referral health center ama cusbitaal degmo ay u gudubto oo balaarin lagu sameeyo baahidaas markii muddo jirtay wasaaradda caafimaadka ayaa waxay ka soo jawaabtay markii ay qiimeysay oo dhismo cusub lagu kordhiyay isagiina ay la wareegayso wasaaradda caafimaadku haddaan degmada ka hadlo degmada waxa soo kordhay caafimaadka oo awal baday ka furay MCH wanaagsani markii dambana aanu aragnay baahi badan taalo iyo dhul badan quudisa degmadu codsigii aanu dirnay heer degmo iyo heer qaranba way ka soo jawaabtay wasaaraddu waxayna dhistay labadan waad iyo bartan qaliinka loogu sameeyo dumarka marka meelaha dheer laga keeno mahadnaqaya cid kasta oo isbitaalkan inuu hirgalo dhismihiisu iskama iman wuxuu ku yimi wada dheer soo maray waa loo dooday waa loo dacwooday warbixin baa laga bixiyay dad badan oo kala duwan oo xildhibaano leh oo siyaasiyiin leh oo gobol leh oo caafimaadka leh ayaa ka hadlay waxa weeye alxamdulillah taawaynu mahadnaqaynaa inta ka soo qayb qaadatayba marka labaad waxaan mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka
oo ku shaqaynaysa siyaasadda qaranka oo hormeedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi Salaad Jamac wararka telefishinka Sahan Garadag